بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله داود يا وشوقي جار هي ما لها وحيد الله سعوديين يعني عبد الله خليف اسكو بريتكا iyo farsamada waa muxiidiin diiriye nuur oo Canada jooga caawa barnaamijku waa aw dumarka qurxuntooda waxa martino ah waa wareysi mawduucuna waa wareysi ku saabsan fawsiyo salaad oo ah ganacsi aas-aase keenay daawad dabiici ah oo dumarku isku qurxiyo waa qaybtii labaad ee wareysigaas soo dhawow fawsiyo waa dhawahay walaal sidaad ogtiin waa gaar haye oo warbaahintii gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin saan marar badan sheegnay dawlad guna kama qaadano mucaaradkana garabsaar lama lihin cid gooniyana kuma xirnin fikirka waa lagu kala gedisnaan karaa laakiin danta guud markasta waa hal weeye gabagabada hadalkuna waa sidii guujis Allah u naxariistay u lahaa aan ku garownay gaar hayow gayiga ilaali marka caawa barnaamij aad u qurux badan waa haweenkii waa dumarkii waa hooyooyinkii oo walaalaheen waa dad kaalintooda ka soo dhaalay marka hal la sheergareeyo like-na hal saaro ana lagu soo xirmo waxaan ku bilaabaynaa fawsiyo soo dhawow waa dhawahay walaal su'aasha hore ku weydiinna waxa weeye gaar haye wuxuu u taagan yahay saad magaca ka garanaysid waxaan leenahay waxa la yiraahdo guidelines bulshada ma rabno xagayga in looga yimaado marka caawa adiga waxaad saaran tahay weyneysada hoosteeda under the microscope waxay dhahaan taxta mijhar bay dhahaan marka maxaa soo baratay horta markii horeysa walaal horta maxaa la yiraahdaa ana ingiriiska waxaan ku bartay maadada businesska and technology-ga ayaan bartay sidaydii horeeto waqti hore aan bartay oo 2004kii meelahaas 2005kii meelahaasayto ayaan dhameeyey waa kasaa shaqadan ka hor maxaad ka shaqaynaysay marka walaal shaqadan ka hor waxaan ka shaqaynayay maxaa la yiraahdaa waxaan ahaa macalin ka dhigo college-ka East Berkshire College la yiraahdo ayaan waxaan u dhigayay maxaa la yiraahdaa isolka ama ingiriiska second language as a second language-ka ayaan u dhigayay muddo waxaan ka shaqaynayay 10 sano inkastoo ay aad u yar tahay dadka mataqaanaa waagii ani aan dhigayay aad ay u yaraayeen dadka macallimiinta hadda dadku waxa u malaysaa aad in ay maaragtay u soo barteen maxaa la yiraahdaa qaybta macallinimada marka waxaan shahaadadayda businesska qaatay kabacdi ayaan 3 sano macallinimo aan sameeyey macallinimadaas marka wax badan ku shaqaynayay ilaa aan businesskan maaragtay ka asaasay waa gartay marka saan hore u sheegnayba waxaan u dan leenahay dadka Soomaaliyeed in dhankayaga looga yimaado ma rabno waxaan arkaysaa dad xanaanada xoolaha soo bartay oo dhakhtarnimo ku shaqaynaya kuwa aan weligoodba dhakhtarnimo soo marin oo dadkii يعني marka saas kale aan diidayna waxa laga hadlayo waa dumarka waa jirkoodii waa bini'aadankoodii waa wax u baahan in si taxaddar leh marka su'aalaha saas ku weydiina saa ula soco maxaa kugu maadaama aad waxa soo baratay maxaa kugu dhaliyay inaad u soo dhigato inaad ka hadashid yani daawooyinkaas iyo maadooyinkaas la isku qurxiyo waliba xayawaan maahan jirkii bini'aadanka waliba qaybtii dumarka ee ahayd asaaskii qoyska Soomaaliyeed horta maadaama sida u ogtahayba Soomaalida maxaa la yiraahdaa wadankan ingiriiska joogta ama wadamo kale ha joogaane waagii anaga bilaabaynay markaano 5 sano ka hor ay ahayd aad ayay ugu yaraayeen dadka maxaa la yiraahdaa u fakaro wadankaas ay joogaan inay wax ka sameeyaan marka sidaas darteeda waxaana aad ugu dhibtoonay kareemada aan isticmaalayna markaan dukaamada waaweyn tagno ama markaan meelaha waaweyn tagno waxaan u tagaynaa waa kareemo ama dad cadaana ay leeyihiin ama dad madoowa ay leeyihiin jirkeena jirki ka duwan daawooyin na saameeyo oo annaga maaragtay wax noo tari karo in aan helno sidaas darteed ayaan maxaa la yiraahdaa businesskan aan u bilownay alxamdulillah dad fara badan ayaa ka faa'iidaystay oo nagu xiran ama ha joogaan America ha joogaan ama Canada ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan dad fara badan ayaa nagu xiran dad badan ayaa aad uga faa'iiday
business kan marka sidaas darteed horta annaga shaqsiyan waxna caawiyo waxan mataqaana jirkeena qurxiyo wax mataqaana jirkeena aan nadiifiyo in aan helno oo jirka typeka skinka annaga aan Soomaali ahaan leenahay alaab loogu talagalay darteedan u bilawnay marka laga hadlayo dukaamada iyo makhaayadaha shatigoodii waa wax sahlan loo fahmi karo maadaama adigu aadan iibin kaliya ka hadlayna aad ka hadlayso ganacsi aasaasi entrepreneur waxa la yiraahdo see ku ogaatay waxaan qaabka loo maro ma sahlan yahay ba arrimaha noocaas runtii horta process-kaanayt qofki inuu warshad intuu diyaariyo waxay alaabtii soo warshadeeyo oo uu keeno suuqii ingiriiska uu keeno suuq kaliya maba ahan dukaamada kaliya ma ahan farmashiyaasha uu toos u geeyo waa arrin aad u adag arrin waqti dheer qaadanaysa waaye arrin lagu degdegi karana ma ahan maanta waxa aan ogaayay haddaan probably aan intaana bilaabin researchka aan si fiican mataqaanaa aan due diligencegayga ama shaqadaydi liiga rabay aan si fiican usoo samayn lahaa maybe waan ka cabsan lahaa laakiin aniga oon mataqaanaa waxyaalo fara badan samaynaan dalab irahday markiina dee badda markaad dhex geshid waa inaad dabaalataa meelaha ka uga baxdid ma laha sidaas darteeda sharciyada aad ayay u adag yihiin materialku wax laga samaynaayo oo sharciyeynteeda way adag tahay quality controlku wuu adag yahay in mataqaanaa tayeynta productiga in la tayeeyo oo tayadii looga baahan yahay suuqa in aad keentid aad ayay u adag tahay maxaa la yiraahdaa waxa kaleeto oo aad u adag inaa maxaa la yiraahdaa way fududahay inaa soo test garaysid wixii laakiin waxa aad u adag in aa marka ugu horeysaba heshid qof daacad ah oo jirka adiga u rabtay wax kuugu sameeyo maalmihii ugu horeeyay sanadadii ugu horeeyay oo ama waqtiyadii ugu horeeyay oo bilawnay waxaan kala kulannay waxyaalo dhibaato fara badan aan kala kulannay product research kan soo samaysanaa ingredient kan soo samaynaa waxayna markaa soo diyaarino labkii iyo wixii la yimaado oo la diyaariyo waxay noqonaysaa sida u rabtay in aan lagugu samaynin oo maaragtay ay dhibaato nagu noqotay ilaa dadkeena qaar kamaniga kamid ah ay baxeen ayaga wixii qaar ay soo barteen yaan lasoo wada baranin oo waxay u baahan tahay 6 years ama 8 years maxaa la yirahdaa university u baahan tahay marka laakiin qaab ahaanteedii kore oo very quick courses aan soo samaynay si wixii mataqaanaa anaga aan ula jaan qaadno wadankii waa gartay daawooyinka noqoto waxyaalaha qaarkood waxaan xasuustaa markii la tijaabinayo sanado badan bay xataa qaadataa marka maadaama ay tan maqaarka la xiriirto ma ka sahlantahay markii laga hadlayo dermatology waxa la yiraahdo oo badanaa ma sida allergy oo kale loo baaraayo waa ka sahlan tahay daawadii jirka gelaysay dermatology lagu sheegay waaba skinka dermatology lagu sheegay maadaama dermatology skinka qaabilsan yahay dermatologist waa inaad la xiriirtid ood leedahay qof dermatologist oo kuu soo test gareeyo productiga soo test gareeyo oo soo hagaajiyo oo maxaa la yiraahdaa sharciyadii wadankan oo u degsan product samaynta waafajiyo because taas haddaan la waafajinin waxa aad samaynaysid ama waxa aad diyaarinaysid wax micno badana ma yeelanayaan marka waa in aad sharci kasta bug iyo qalin intaa qaadatid waxay kugu qaadanaysaa at least markay ugu yar tahay dhowr bilood inaad saxdid oo tiraahdid kan waa sharciga waa ka gudbay sharciga waa ka intaadan u tegin sababtoo markaa aadid productigii aad test labkii iyo wixii meeshii aad dirtid oo formulationkeedii waxaad waraaqaheedii aad qaadid ood rabtid inaa maxaa la yiraahdaa u gudbisid qolooyinka legislationka ama quality controlka aa u gudbisid waxay dib u baarayaan wax kasta adiga 6 months ay kugu qaadanaysaa intaas kaliya inaad soo gudubtid marka ma ahan wax fudud arrin fudud ma ahan arrin mataqaanaa la yaraysan karana ma ahan mana ahan mataqaanaa mass production ma ahan waxaan waa wax yar oon ugu talagalnay Soomaalida at the moment mass productionka waa very easy because one product ya keenaysa asaga unba mass u samaynaysa laakiin anaga waxaan samaynaynaa
quantity intaana samaynayna waxaan yarkaayaan rabnaa inaan dadkii maaragtay oo quality leh inaan hagaajino ka gadno marka qaybta waa ka baxaynaa guud ahaan laysanka iyo shatigu ma ka duwan yahay marka ganacsiyada kale ma ka adag yahay sida maqaayadaha iyo dukaamada caadiga wax lagu gada iyo waxaas mise wuu ka adag yahay waxa u baahan tahay insurance gooni u waxaad u baahan tahay qof soo bartay maxaa la yiraahdaa legislation ko sharciyada sideedaba soo bartay ayaa u baahan tahay waxa u baahan tahay lawyer u baahan tahay waxa u baahan tahay waxyaalo fara badan businesska marka cosmetic bilaabaysid waxa all this documentation marka rabtid inaa farmashiyo ka gadi ama for example even Boots u tartanay hadda ka hor waxa ay ku weydiinayaan waxa waaye paperwork la isweydiiyo wadankan paperwork hadaysan diyaar ku ahayn wax walba page kasta page-kii uusan kuugu xigin waxbaan taqaana kuma soconayaan business aad ku samayn kartidna ma jirto waxaaga waa inay isugu kala duwan yihiin waa gartay markii lagu ogolaaday ma lagu weydiiyey dad volunteer oo daawada la mariyo bal in wax ay yani allergy ay ka qaadayaan iyo in kale mise mar haddii shaybaarka lagu tijaabiyey horaa looga maya shaybaarka markii lagu tijaabiyo hore looma wado sample product yaa lagu siinaya waxa lagu leeyahay sample productkaaga waa kana adiga ama dad employ garayso oo dad shaqaalayso ku test gareeya ama adiguba naftaada isku soo test garee marka anaga waxaan samaynaa waan soo diyaarinaa friendski iyo dadka ayadoo test ku dhigan tahay ayaan u qaybinaa oon nirahnaa baashan waa testable soo fiiri marka ugu horeysana waxaan samaynaa allergy test ee uga qaadnaa gacantooda ama dhuunta hoostooda meelahan si aan u aragno waxaan wax allergy aan lagu noqonaynin inay tahay kabacdi ayaa testingka la guda galaa testingkaas kaligeeda ayaa waxaa laga yaabaa inay qaadato 6 to 8 weeks marka testingkaas la soo bogo adiga aad soo test garaysid ayaa company ku noqonaysa waxa leedahay productiga waan ka helay maaragtay bal manufacturerkii marka waxaan rabaa in maaragtay productiga ama la diyaariyo ama la hagaajiyo ama sidee mataqaanaa paperworkiisa loo sii diyaarin karaa daawadayaal waxaan ku jirnaa waraysi aan la leenahay Fawsiyo Salaad oo ah ganacsi aas-aase daawo dabiici ah oo dumarku isku qurxiyo khaasatan xataa raggu qaar waa isticmaali karaa hadda productigan ay hayso marka arrimahaasaan ku jirnaa marka sheergareeya oo like-na hala saaro si gaar haye loogu soo xirmo su'aasha hadda waxaan u gudbaynaa suuqgeynta maadaama hadda qof ganacsi aas-aasa bilow aad tahay macaamiil yaa u baahan tahay dadka Soomaaliyeedna waa dad isku xiran oo yani community isku xiran weeye marka ma taas uga faa'iidaysatay mise qaab kale oo casri oo yani wax lagu xayeysiiyo ama la isu gaarsiiyo see ku bilowday suuqgeynta arrintan marka suuqgeynta waxaan ku bilownay anaga horta marka ugu horeysa waxaan tagnay telefishinadaan tagnay waxaan tagnay Facebook marka social media kaba aan isticmaalno laakiin waxaan aad maaragtay aan markii horeeto aan noo caawiyey oo telefishinada Soomaalida aad maaragtay suuqgeynteena ugu xirnay ta kale maadaama Soomaalida aan nahay society meel kasta joogo oo aad u kala daadsan waa in meel kasta loo geeya oo hadda Sweden oo kaleeto waa lagu gadaa Norway gabaraa ku gadaysay Jarmalku waa lagu gadaa waxaa lagu gadaayo kaleeto Soomaaliya meelo fara badanaa lagu gadaa okay haywad Soomaaliya lagu gadaa waxa kaleeto lagu gadaa maxaa la yiraahdaa Kenya lagu gadaa marka UK meelo fara badanaa lagu gadaa farmashiyaal badanaa lagu gadaa website-ka lagu gadaa laakiin main target-ka anaga aan saarno waa website-ka waa tahay markii aad telefishinada la tagteen telefishinada kolley fi sabiilillahi ma ahaan u malaynaya ma sahlana marka adinkoo iska ah dad qof iska dan yara oo hadeer ganacsade aasaase cusub ah ma sahlana markii telefishinada ka sii dayseen dadkii si sahla meel ku soo xiriireen mise arqalad kala kulanteen ما والله مرك أقول رئيس هرت سيدا ده business مركا بلاودي محل يرهدا وحبري difficult إن محل يرهدا ad maaragtay Soomaalida aad ay warka isku gaarsiiyaan waa oral society way maadaama oral society ay tahay dadka badankooda
waxay maxaa la yiraahdaa nagala soo xiriiraan ama saaxiiba u sheego ama qof kaleeta u sheego sidaas ayay noola soo xiriiraan bal noocyadii waxaan u gelaynaa marka imise waxyaalood imise maado imise daawo soo saartay ilaa hadda waxaan haynaa waa ilaa 8 ayaan wadnaa ilaa 8 hadda haynaa waxaan kaleeto bilaabaynaa mar dhow hadduu ilaahay yiraahdo waxaan bilaabaynaa qaybta ragga ayaan mar dhow bilaabi doonaa weli ma aana bilaabin waxaan kaleeto hadda ku guda jirnaa soo saaritaankii shaambooyinka iyo timaha marka wejigii iyo timihii iyo raggii productigoodii waxoodii kulli waynoo wada dhiman yihiin marka shaqo badan aan oo hartay daawadayaal weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii wareysiyada waxaa martino ah Fawsiyo Cali Salaad oo ah ganacsi aasaase daawooyinka dabiiciga ah ee dumarku isku qurxiyo ragguna waa ku jira qaarkood marka hadda waxaan gelaynaa marka inay bal noo kala dhigto inta daawo ay hayso waxay taraan meesha la marsado qaabka loo marsado marka sheergareeya like-na hala saaro insha Allah marka Fawsiyo marka bal daawada haysid noocyadeeda bal inta ka gaari kartid magaceeda waxay qabato jirka qaybta la ismariyo wax laga faa'iidayo sideedaba horta qofka wuxuu u baahan yahay markii uu isqurxinayo wuxuu u baahan yahay routine inuu raaco sida qofka soo salaadu waa routiinkaas qofka markuu routiinkiisa raaco ayuu wax maaragtay diyaarin karaa wax samayn karaa ama wejiga uu qurxoonaan karaa marka routiinka qaybta ugu horeysa waxa waaye dhowr step baa la samaynayaa stepka ugu horeeya waxa waaye wejigood biyo ku dhaqdid asagoo maxaa la yiraahdaa saliid ku dhaqdid kabacdi ood cleanser marisid haddana scrub marisid so intaas kaliya weji dhaqitaankii waaye dhowrkaas nooc marka hadhowti dhowrkaas nooc la dhameeyo ayaa waxaa la samaynayaa day cream wax la yiraahdaa jiro oo maalintii loogu talagalay haddii aan mid ka mida soo qaado waa kana day creamka kareemkaas I don't know inaa ujeediin marka kareemkaas waxaa loogu talagalay waa day creamka waa maalintaa loogu talagalay ayagoo yareer dhaloon yaryar ku jiro oo night creamka jiro oo laba nooca midna loogu talagalay maxaa la yiraahdaa loogu talagalay dadka saliidda leh ama waxaa loogu talagalay dadka oo jirkooda qalalan yihiin waa kala nooc waxaa kaleeto jiro asagoo body lotion oo jirka loogu talagalay in la mariyo haddii aan asagana idin tusiyo waa kaasaa runtii bacyadooda qaali ma ahan oo anaga waxaan isku daynay wixii maadaama ay tahay wax society-geena aan rabno inaan ku caawino price macquul ah oo maaragtay oo qofka bini'aadamkaana dhibaato aan u keenaynin companygina aan loss u keenaynin ayaan gaarsiinay marka intaas qofkii uu diyaariyo waxa kaleeto oo maaragtay qofkii laga rabaa in uu sameeyo maxaa la yiraahdaa wejigaas uu isticmaalo waxa kaloo jiro vitamino uu isticmaalo sida vitaminkan oo kaleeto vitaminkaas oo kaleetaa jiro waa kaasa marka intii badankoodii waa kuwaasaa waa tahay marka maadaama kariimiyo badan iyo lotion badan ay suuqa yaalaan marka u rabtaa dumarka Soomaalidu inay adigu soo aadaan waxaad leeyahay marka Soomaaliya samaysay maxaa ku khaasa bisaadaha waxaad leedahay annaga jirka maqaarkeena naqaan iyo dumarkeeno asraar iyo waxyaalo kale ku duugan baa jira see marka uga faa'iideysanaysaa inay ka soo go'aan waxa kale oo adigu ka wax gaagtaan runtii maxaa la yiraahdaa muhiimadda ugu weyn waxa waaye maadaama productgan Soomaali ay sameeyeen Soomaali mataqaana loo soo test gareey Soomaali dawladda Ingiriiska ay mataqaana xagoodii ay ka soo dhamaatay oo everything ay regulationkii wax walba ay soo martay haddana gabdhihi badan oo mataqaana isticmaali jiray maxaa la yiraahdaa productiyo waaweyn sida ama 7 ha ahaato ama L'Oreal ha ahaato oo top class ahaa ayaa intay ka soo tageen anaga kuween isticmaaleen wallahi difference-gina what you can tell
difference sababtoo ah skin kan based on skin keena loogu talagalay L'Orealna mid cadaana loogu talagalay marka waxba iskaga dan ma ahan anagu qofna ma dhahaynana qaraabo kiil oo kaala qaraabo kiil wax nooga gado laakiin waxaan leenahay bal marka hore tijaabi markaas ka bacdi ayaa maxaa la yiraahdaa in adiga waxa maxaa la yiraahdaa decision ka gaari kartaa inta badan dumarku way nagu soo noqdaan inta badan markaan yiraahna boqolkiiba 60 ama 55 way nagu soo noqdaan wayna noo yimaadaan way naga gataan marka 5 sano oo jirnay sanad shanaada hadda noo bilaawday 5 sano oo jirnay soo noqnoqoshadaas iyo alaabtaas ay naga gadanayaan ku noolayn haddii kala suuqan ka bixi lahayn dad badan aniga hortay soo galay oo 2 bilood markay joogeen suuqa ka baxay suuqa productiga waxaysan uga bixi karin waa product tayaysan oo la soo tayay loogu talagalay in maxaa la yiraahdaa dadka ay wax ma taqaanaa ay ka faa'iidaan business kaliya ma ahan waa faa'iido in u lahaato society-geeni waxaad xustay fanaaniin dumar oo caan ah waxaan ognahay dumarka fanaaniinta ah iyo kuwa jilayaashaba waa dadka kuwan aad ugu badiyay alaabtaan oo dee shaqadooda ku xiran marka waxaad magacooday Faadumiin oo kale fanaanta caanka ah marka haddaan weydiino dhahno waxaad sheegaysid ma rabtaa inaan weydiino hadday wax cagsi ay sheegtay ka waran Faadumiin ani ina ay weydiisid ma baahanba Snapchat-keeda qofkii galo wuu ka arkaya aniga Faadumiin lacagna ma siinin umana dirsanin walaaltinimo iyo Soomaalinimo unbay noogu samaysay productigana way gadatay oo farmashiya ka gadatay markii hore uma aysan aqoon Soomaali inay tahay markay soo ogaatay nala soo xiriirtay ayadaana hadda ma taqaanaa Snapchat-ka mar walba geliso qof kasto oo Snapchat-ka ka fiirin karna uu ka fiirin karaa mana qofna uma shaqayso anna company-gaana uma shaqayso anna iima shaqayso waa tahay daawadayaal weli waxaanu ku jirnaa barnaamijka wareysiga ahaa Faadumo Salaad Fawsiya Martino Salaad oo ah ganacsade aasaase daawooyinka dabiiciga ah ee dumarku isku qurxiyaan waxayna sheegtay oo sida hadda laga arkay sawirada yani dumarkii Soomaalida ugu caansanaa qayb kamid ah ba intay tageen yani farmashiyooyinka ka soo gatay oo qiray inay tahay waana keeni doona isku dayin doona fanaaniinta qaar kamid ah oo dumarka in la helo marka shargareeya waa sii wadeena barnaamijka waxaa jira saalo socotid daawooyin khatar ah oo maqaarkana dhib ku ah sida baasha biliijka kale ama wakiilada aan dhihi jirnay oo dumarka qaar cadaan iyo waxay ka raadiyaan laakiin jirka khatar u gelaysa daawooyin badan waxaa jira hadda meelahan dukaamadan Ingiriiska lagu gado laakiin aan laysin iyo shati xoba haysan oo iska suuq madoow hadhow markii loo yimaado dad badanna waa galafteen hadhowna waa la ganaaxaa marka kuwaagu waa horey waa u sheegtay laysinka inaad soo qaadatay laakiin mararka qaarkood markii laysinka la soo qaato qofku wax kaluu u dusin karaa marka ma caddaynaysaa inay arrimahaas ka badbaadeen oo markii hore iyo markaa dambaba runtii horta laguma gadayn farmashiya haddaysan license ahayn maadaama farmashiyaasha lagu gadaayo waa license hal shay oo farmashiya lagu gadinna maba gedi aniga website-keyga kuma gedi sababtoo ah farmashiyaha markaa productiga u geynaysid dowladda iyo skin regulationka dadka sameeya waxay leeyihiin website u gaara oo laga fiirin karo productigan license-keeda waxay ka samaysan tahay iyo wax walba so license-kaasay galaan productyada aan hayno ay ka fiiriyaan markaas ka bacdi naga qaataan so iskama easy ma ahan inay iska qaataan marka see dumarku marka uga faa'iideysan karaan marka guud ahaan waxyaalaha aad soo saarteen maadooyinkan horta dumarku waxay uga faa'iideysan karaan ayagoo isticmaalay ayagoo ka ganacsada labadaba way uga faa'iideysan karaan isticmaalka waxa waaye waxay ka badbaadayaan skinkooda wax aan loogu talagelin ganacsigana faa'iidayba ka helaan waa ognahay ganacsiga faa'iidada uu leeyahay marka hadda dumar badan oo waxa arkaysaa Herbal Life oo kaleeto ka beec mushtaro why not intay nala soo xiriiraan ay keena ka beec mushtari karaan anagoo u diyaarinayno mataqaanaa network iyo systemkii iyo wixii aan u diyaarino ay ayagana nala shaqayn karaan
waa wada shaqayn gacmood wada shaqaynay waa mataqaana wax ku gooyaan marka sidaas darteeda waxaan leenahay dumarka Soomaaliya ama ragga Soomaaliya ama dadka wax gado oo beec mushtarka inay nala soo xiriiraan si annagana aan mataqaana uga faa'iidna ayagana ay uga faa'iidaan hadda marka adiga ma qaybtan isqurxinta xooga saartay mise waxa jira cudurro aad hadda dadka Soomaalida ugu dhaca sida autism-ko kale sokorto kale marka wax dhinaca kale inaad u gudubtaan oo daawooyinka sida sokorto kale oo diabetes kale yiraahdo ama cudurkan noocyo badan waa hal cudur ma aha autism kale yiraahdo marka ama wax kaleba loo cuno calooshay ha ahaato daawo nooc kale oo kordhiseen ma jiraan mise hadda xooga waxa saarteen kan hadda waxaan ugu talagalnay horta markii ugu horeysa waxaan ku bilaabnay qurxinta wajiga qurxinta bodigana waa ku xijinay kuma tala jirna anaga daawo oo caafimaad ahaan loo cunayo inaan maxaa la yiraahdaa anywhere keeno laakiin waxaan aan diyaarinay productiyo fara badan oo dumarka isticmaali karaan markii ay mataqaanaa ay caafimaadkooda ay u isticmaali karaan iyo waxyaalo badan oo waxaan soo wadnaa la isku dhaqo ayaa jiro oo mataqaanaa dumarka markay caadada qabaan waxyaalo lagu dhaqo waxaa jiro markii qofta dumarka ee raggeeda la seexato waxyaalo lagu dhaqaa jiro waxyaalahaas dhanaan mataqaanaa eventually aan keenaynaa oon test ku wadnaa marka waxaan qaabilsannahay annaga nadaafadii iyo isqurxintii unbaan weli ku jirnaa laakiin weli ma aana gaarin umana socdi kolley aniga unless kambaniga ay dhaqaatiir kusoo biirta ma ahane hadda kuma jirno maaragtay in aan wadno wax daawo ah ma jirtaa marka hadda maadaama London aad degan tahay ma bilowday wax seminaarra camala ama workshop oo kale oo intaad meel maalin qabsatid dadka dumarka u badan Soomaalida ay kugu imaanayaan ay ku marsanayaan ay maanta tijaabinayaan ma samaysaan saas waa sameynaa dhowr meelood aan ka sameynay hadda week la soo dhaafay xataa Tottenham Edmonton aan ka balansanayn inkastoo balantii naga baaqatay waa sameynaa groupka laakiin waa inay ayagana la soo xiriiraan waa inayna dhahaan workshopka noo samee bishii horeeta waxaan tegay Jarmalka dhowr qof baa maxaa la yiraahdaa gabdho badan aan soo arkay marka haddii workshopka dadka ayaga noo yeertaan diyaara u nahay hadda Somaliland waa nalooga yeeray muqdishona waa nalooga yeeray kaalay workshopka dumarka u sameeya meelahan ayaa lidinkaga baahan yahay Nairobi sidaas oo kaleeto waa nalooga yeeray workshopyadaasaa loo baahan yahay sababtoo gabdhaha waxaa vital ah inay ogaadaan quruxda waa intii uu ilaahay siiyey qurux ka dambaysa ma jirto gabadha in ay stop garayso in ay iscadayso nimankan inay stop gareeyaan inay caddaan raadiyaan labadaas shay waa muhiimadda waa gartay marka hadda bal qiimaha iyo sicirka iyo meelaha lagu gado marka su'aalo badan baa la soo weydiiyey wareysi hore xagee lagu gadaa see xamar lagu keeni karaa see Hargeysa lagu keeni karaa qiimuhu waa imisa bal si faahfaahsan arrimahaas xoogaa u taabo qiimaha horta waxay u kala duwan tahay wixii maxaa la yiraahdaa qiime ah website-kay ku jiraan website-ka laga helayaa oo mataqaanaa price-yadu way kala duwan yihiin wixii jumlo ahna way ka duwan tahay oo waxa waaye wax in maxaa la yiraahdaa laga wada hadlo quantity-ga ku xiran tahay qofka quantity-ga uu gadanayo the more qofka uu quantity-giisa badiyo the cheaper ay u noqoto maaragtay product-gaanayto midda kaleeto waxa waaye mar kasta lama tartami karna anaga waxa China laga soo sameeyo $9 lagu soo sameeyay ma la tartami karna waxa anaga maadaama ay quality leeyihiin is completely wa different price waa wax quality leh waaye dadkan hadda waxa u malaysaa quality in loo guurayo oo in terms of maaragtay tayadii kor loo qaadayo dumarkana way ila soo xiriir karaa mid kasta oo rabto gurigeeda inay ku gado mid kasta oo rabto dukaankeeda inay ku gado mid kasta oo rabto mataqaanaa horta dumara ganacsiga u badan ganacsigan marka ayagana way ila soo xiriir karaan qof kasta oo rabe inaa single u gadatid iyo inaa wholesale u gadatid labada waa ila soo xiriir kartaa daawadayaal waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijka waxaa marti noo ah Fawsiyo Salaad oo ah ganacsi aasaase daawooyinka dabiiciga ah ee dumarku isku qurxiyaan marka shargareeya like-na hal saaro u soo noqo hadda waad ka hadashay afwan waa ka hadashay arrimo waxyaalo kale soo wadaan bal tii quruxda yani
daawooyin ku soo xigatan quruxda oo kuwa hadda aad hay sideed aad sheegtay oo jid ku soo jira ma jiraan ha waxaa jiro maadaama scrubyadii horeeto maadooyinka hore 2017 ay ku ekaayeen 2018 waxaa soo baxay new regulationka marka productyada aan soo saarayno new regulationka kusoo saarayna oo cusub waa maxaa la yidhahdaa serum iyo maxaa la yidhahdaa wajidaq oo ama cleanser iyo scrub saddexdaasaa noo soo socdo sanadka dhammaadkiisa 2018 dhammaadkiisa beginning of 2019 na waa shambooyinkii 2 shambo iyo 2 conditioner intaasaa noo soo socoto okay haddaan hadda ku dhihi lahaa marka haweeney baan ka helay haadiyad inaan siyaar rabaa dhowrka xabbo oo horeeya waxaan lama wada gadi karee kee xuli lahayd marka waa u fiican oo dhihi lahaa haweenta hala siiyo waxaan xuli lahaa waxaan u xuli lahaa kanaan u xuli lahaa okay taas makarin baa taa marka maxay tahay waa cream maxaa la yidhahdaa spot and tone dhalada sirtaayo ku jiraa kan waa mid ka dhamaaday empty waaye hadda waa ujeedaa intaas yartaayo baa uga hartay inta hoos uu kasoo dhamaaday marka kan basically spot and tone waa ugu qaalisan $720 pound la gadaa waa kan ugu tayada fiican oo qof kastoo marsadan uu ka helo faadimiinan waa arkiga doonta ayadoo saas dhaysaad arkaysaa maaragtay waa ugu tayada fiican oo uu isticmaali karo qofka hadduu saliid leeyahay hadduu qalalan yahay labadaba uu isticmaali karaa maadaama macaamiishaadu soomaalidu ay kow ka tahay af soomaali ma ku qorteen marka instructionka ma ku jira waxa soomaaliya waa dheeriya soomaaliga weli kuma jiro maadaama farmashiyaasha ingiriiska aan geynayna weli kuma aana tirigelin Soomaali laakiin eventually markaan rabno inaan Soomaali u qaadno waan Soomaaliyeyn doonaa inkastoo Soomaalida hadhowtina inaga carabi doonaan marka waa soo gabagabeynaa marka talooyinka u dambeysay aad siinaysid dadka daawooyinkan isticmaalaya dumar ha aadeen rag ha aadeen maxaa kula talinaysaa marka waxa hadaa rabtid inay jirkaaga wax iska bedelaan waxaa siisaa waqti marso waqti isticmaal waqti ka faa'iideyso markaa ka bacdi ayaa waxaad saari kartaa miisaan saari kartaa laakiin haddaa dhaladan inta soo gadib dhalada yartaa waa 50 mil kaliya 50 mil waaye marka 50 mil kaasayto haddaa tiraahdo 50 milka iyadoo nus ani tan ima anfacaysa oo tuurtid waxaa ogaanaysaa tan chemical kuma jiro maadaama aysan chemical ku jirin waa natural wixii naturalkana time bay u baahan yihiin daawadayaal taasi waxay ahayd Fawsiya Salaad oo ah aasaase daawooyinka dabiiciga ah ee dumarka isku qurxiyaan waliba rag baa ku jira marka gaar haye wuxuu soo dhaweynayaa cid kasta oo maskax caafimaad qabta oo bulshada wax ku soo kordhinaysa diyaar baa u nahay inaan caawino marka aad bay ugu mahadsan tahay inay nagala soo qayb gashay barnaamijka oo ay soo bandhigtay daawadaas dabiiciga ah ee waxaan faa'iido ahayn uma leh jirka waxa maada oo dhiba kuma jirto marka dadka saas oo kala ah ganacsi aasaasi oo raba inay waxooda ka faa'iideystaan si gacmo furana ayaan anu ku soo dhaweynaynaa oo bilaasha marka aad bay u mahadsan tahay daawadayaashuna aad bay u mahadsan tahay waliba iyadu waxay ku fiican tahay su'aalaha dadka fiirsan doona ay soo weydiiyaan aad bay ula socotaa oo uga jawaabtaa marka taasna aad bay ugu mahadsan tahay marka waxaanu ku soo xiriirnaa barnaamijka waa gaar hayo idin leh aanu ku garownaya gaar hayow geyiga ilaali wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu